عليكم my dear students, welcome back to Language College Hargeysa. Kusoo dhawaada kulliyadda luqadaha aad baan idin wada salaamaya. Maanta waxaanu qaadan doonaa insha Allah live casharkeena waxaanu ku qaadan doonaa quiz yaro English oo kooban oo ku saabsan qaybteena beginnerka. Okay? Marka ardayda beginnerka ayaa inta ka faa'iideysan kara. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah si fiican ay maqli kartaan. Waad ka qayb qaadan doontaan quizka, su'aalahan idin soo dhigaya. Marka waxaan marka hore doonayaa inaad soo qortaan magaalada naga daawanaysaan siina share gareeya. Magaalada aad ka daawanaysaan noo soo qora siina share gareeya. Waanu iska bilaaban doonaa. Bismillah. Marka su'aasha koowaad adika xagga ku arkaya. Marka waa koyton baanu ka bilaabanay inta kale waa sawiro. Marka 20 su'aalood baan ku weydiin doonaa. Marka waxaan doonayaa xagga barta meesha banaan afartaasaad kala dooranaysaa. Name is Kawsar. Marka xagga maxaa la qoraya? Ma I name is Kawsar baa la oranayaa? Ma he ayaa la oranayaa? Mise waxaa la oranayaa my? Mise waxaa la oranayaa our? Okay, su'aal walba waxaan idin siinaa in yaroo seconds ama ilbriqsi yaroo kooban. Marka intaa markaad ka jawaabaysaan aan diiro sugayo inta ka xigtana marka aan idin jawaabiyo waan sii wadanaa. Marka taa koowaad imika ka soo shaqeeya insha Allah. Space name is Kawsar. Marka keeba galiya afarta ayaad kala dooranaysaa. Marka waxaan doonayaa jawaabta inaad ku soo qortaan comments han ayaa jawaabta noogu soo qoraysaan kadib markaasaan isla eegi doonaa insha Allah. Okay, kaawad ka soo jawaabteen ma sha Allah, jazakallahu khairan. Ardayda ka soo galaysa magaalooyinka oo dhan Hargeysa aad baan idin wada salaamayaa. Reer ma sha Allah, Garowe, Muqdisho ma sha Allah, Berbera ma sha Allah, si fiican aad baan idin wada soo dhaweynayaa. Soo dhawaada meel walba aad joogtaan ma sha Allah, arday fara badan ilaa South Africa ilaa Sacuudiga ma sha Allah. Waayahay marka jawaabtaasi iyadu waxa weeyaan my. Taasaa sax. Haddii aad my qortay waad saxsan tahay. My name is Kawsar. Okay? Marka waxa weeyaan taasaa jawaabta noqonaysa. Okay? Ka ku xiga marka number 12. He is or he are he am he were from New York. Marka he space from New York. Intaasaa laga doonayaa. Marka soo qora insha Allah. Jazakumullah khairan. Aad baan idin wada salaamay ardayda soo wada gasho dhan sharafta leh. Very good. Beerdala bay. Marka bay baa laga soo galay, UK baa laga soo galay ma sha Allah. Aad baan idin wada salaamay. Soo dhawaada. Marka he maxaa halkaa gelaya? Okay? Waa sax. Is ayaa inoo gelaysaa. He is from New York. Very good. Okay? Ku xiga marka they from London. They from London. Marka afartaasaad kala dooranaysaa. Imika idin akhrin maayo idinkaan doonaya inaad ka soo dhex saartaan. They space halkaa banaanka from London. Marka jawaabtii noo soo qora. In yar baan diira sugi. Ku dadaala ma sha Allah. They from London. Marka maxaa lagu qorayaa? Keebaa la dooranayaa? Ma sha Allah. Si fiican baad u wada garteen intiina badan. They are from London weeyaan. Jazakumullah khairan. Waaye aanu sii wadana haddaba. I am student. I am student. Okay? afartaasaad kala dooranaysaa. Ma isba, ma ayba, anba, wasba. I am student. I am student. Okay? Soo qora insha Allah. Very good, ma sha Allah. Si fiican ardayda aad baan idin salaamay South Africa meel walba laga soo galay ma sha Allah. Jazakallahu khairan. Okay? I am student. I am student. I am student. I am a student. I am a student. Very good. Jazakumullah khairan. Waanu sii wadan haddaba su'aalo fara badan baan sugaya. Marka ku xiga waxa weeyaan the baby gets up. The baby gets up 4 a.m. The baby gets up 4 a.m. Marka maxaa la dooranayaa? Ma on ba, ma in ba,
the mise at the baby gets up 4 a.m. macnaheedu waxa weeyaan ilmaha yar ama nunuga yar gets up soo kicidda 4 subaxnimo 4 a.m. 4 a.m. okay keebaa dooran lahayd marka inoo soo saara okay the baby gets up 4 a.m. very good the baby gets up 4 a.m. very good the baby gets up at mashallah جزاكم الله خيرا انتينا soo galay oo dhan ka faa'iideystay insha Allah arday badan baa imika naga soo daba gashay quiz yar baan wadnaa markaas su'aasha aan idin weydiinayo meesha bannaan ayaad afarta option ayaad kala dooranaysaa marka in yar baan idin sugayaa kadibna aan jawaabteeda siinaya marka su'aasha 15 15 waxa weeyaan jawaabteeda the baby gets up at kaasa saxayno aanu sii wadana hadaba ka ku xiga she the stairs she the stairs marka sheena waa iyada the stairs no kaabadaha ama jaranjarada okay si aad u taqaanidba get up goes up okay ma gets ba ma get up ba ma goes up ba kala doorta marka she the stairs okay marka idinka kala saaraya marka she get up goes up kuubu noqonaya si fiican kan u fikira kan in yaroo trick siyaasad yar bay idigu jirtaa waa yara khiyaameena marka waa inaad si fiican u kala saartaan okay oo yara fikira si fiican jazaakum allah khayr inta soo jawaabtay waan arkayaa ma sha Allah in badan way saxday inna way ku yara dhacday xagga she goes up where she goes up the stairs okay she goes up the stairs okay she goes up the stairs very good intina soo saxday ma sha Allah intina kalena iska saxa 17 toddobiitan marka we have any bread marka waxay noqonaysaa doesn't ba don't do ama some we have any bread okay we have any bread keebad ku jawaabaysan marka si fiican u yara fikira in yar baan idin sugi kala doorta marka afartaas we have any bread ardayda inoo soo galaysa aad baan idin wada salaamaya ka qayb qaata insha Allah waa quiz si general oo beginner ah ardayda below English ka wali oo ka faa'iideysan karaan insha Allah ardayda markaana daawanaysa ay doonayso koorsooyinkeena online ka waxaad kala xiriiri doontaan quiz-ka markuu inoo dhamaado ama video live-ka markuu inoo dhamaado waxaad kala soo xiriiri kartaan lambarda xagga sare ama ku xagga hoose ku qoran insha Allah ama lambarka message-ka taaban kartaa marka video-ga markuu inoo dhamaado lambar baa xagga sare lagu qori doonaa kaasaad WhatsApp-ka kala soo xiriiri fariin baad u soo diri macluumaadka iyo buugaagta waxa dhan lagu siin doonaa insha Allah waayahay we have any bread marka maxay noqonaysaa جزاكم الله خيرا إن بدأ باكسو شابتي كود ذلك كودا عشان المكارتي ذي صاير بدأ تمرك إن يربان دير السوي أوكي سفيان هاي جزاكم الله خيرا ما شاء الله مقالوا يمكن تكسو قال جانو رب عاد بان دي وذا السلامي مكمل آخرين كرنا شوابان مكحوق وذا سارنا إن شاء الله إدي سو قال جانو رب عاد بان دي وذا السلامي we don't أي مقنص we don't have any bread we don't have any bread وحرودي إنه متعال okay أما روتي أما رودي صادو تغالبا فرن we don't have any bread okay very good أنا سي وضعنا هذا سديدي طبعا have you got a pen have you got a pen yes I okay yes I marka got miya am have mise waxa weeyaan waa don't have you got a pen yes I
waaye markaad doorta afartaasaad kala dooranaysaan. Have you got a pen? Yes, I. Ma got ba, am, mise have, mise waa don't. Have you got a pen? Yes, I have weeyaan. maasha allah intiina badan waad soo saxday jasaakum allah khayran. Have you got a pen? Yes, I have. Yes, I have. Okay, marka mar walba ardaydan waxaan kula talinayaa markaad su-aasha lagu weydiiyo yes ama no mar walba ku jawaab. marka koomadaana ha ilowina markaad qoraanaysaan. marka inta badan waxaan arkaa ardayda yes I have koomadaas inta badan ka tagaan. marka waa punctuation. marka iska ilaaliya intaas insha allah. ku xiga marka 19 aan u gudubna marka su-aasha 19aad. They home yesterday. They home yesterday. Okay, they home yesterday. marka ma wasn't at, will be at, weren't at, were any. kay baad dooran leed. wasn't at ayay noqonaysaa mise waxay noqonaysaa will be at mise weren't at mise were any. kay baad dooran leed. They home yesterday. They home yesterday. Okay, si fiican u fiirsada, si fiican iskaga hubsada insha allah. iska sheegaraya. jazaakum allah khayran intiina soo jawaabto dhan maasha allah waad ku dadaasheen si fiican. very good, soo wada. okay, haye maasha allah intiina badan waad saxdeen, qaar baa in yar ka yara qaladantay. They weren't at home weeyaan. okay, they weren't at home yesterday. okay, jawaabta saxda waa weren't at. They weren't at home yesterday. tanaad jawaabta inoo sax. aanu sii wadan haddaba marka 20 baan imika marana waana total waa 30. marka imika 10 baa inoo harsan. ku dadaala insha allah. intii soo galaysay imika ka faa'iidaysta. intii su'aalo hore ku dhaafay video hadhow markuu dhamaado xagga horaad kaga soo bilaabi kartaa insha allah. haddii aad macluumaadka koorsooyinka u baahan tihiina lambarada xagga sare kala xiriira. ardayda soo galaysana fadlan inoo sii share gareeya insha allah. My brother is older me. My brother is older me. Then ba mise than ba mise waa that ama is. My brother is older me. ma than ba ma that ba ma that mise is. si fiican u fiirsada insha allah kuna dadaala. jazaakum allah khayran si fiican baad u soo wadaan. waayahay si fiican baan idin wada arkaa. very good. okay, maasha allah intiina badan waad fahmaysaan. My brother is older me. Then, than, that, is. ardayda inta badan labadaas way isku qaldaan waan arkay. intaan u soo dhigay oo dhanba intaa labada erey way isku qaldaan. markaa ku yaro noqda insha allah. haddii aad u baahataa macal google-ka geliya labada erey maxaa u kala dhexeeya si aad u fahantaan insha allah. isticmaalka kala duwan taasna 10 kala kooban. marka imika geli mayno laakiin jawaabo maan doonaya inaan disiyo. My brother is older than weeyaan. okay, than me. okay, kani waa waqtiga laga hadlaya markaa kani lama isticmaalayo. laakiin my brother is older than me. walaalkay wuu iga weyn yahay. 21 markaan u sii socono. Hannah her arm on a hot iron. Hannah meel banaan. her arm on a hot iron. marka iron qaar baana fahansanin waa kaawiyad. kaawiyada dharka lagu kaawdaysto weeyaan. marka kaawiyad kulul ayay gacanteeda wax ku noqotay. marka maxay gacanteedu ku noqotay? broke, sprained, burned, mise cut. okay, taaf Soomaaliga baad aan ugu sharaxaan u maleeyaa jawaabtu waan idin siiyay. marka iska raali noqda. marbaad inta dambe aad Soomaaliga ku fahanteen kana waad iska fahmaysaan jawaabtiisa. marka muxuu noqonayaa ma broke, sprained,
burned mise cut. Okay, soo qora marka maasha allah, jazaakum allah khayran, si wanaagsan. haye waan arkaa, very good. hay waad saxdeen maasha allah, soo wada intiina kalena, very good maasha allah. okay, kaa waad iska wada fahanteen intiina badan. marka waa burned. okay, Hannah burned her arm on a hot iron. gacanta iskaga gubtay kaawid kulul. next one 22 ayaan ugu ira gudbaynaa. marka waxaa la doonayaa Mohammed's very, okay, Mohammed's very, okay, he's never late and he never forgets to do things. marka Mohammed's very, marka muxuu yahay weeyaan, he's never late and he never forgets to do things. marka ma reliable ba, patient, mise waa grounded, mise honest. keebaa dooran lahayd? reliable, patient, grounded, mise honest. okay, honest ardayda inta badan waxaan arkaa hadaasay ku dhawaaqina honest ayaad ku dhawaaqaysan. hadaasi waa almost silent, laguma dhawaaqay. marka ma reliable ba, patient, grounded, mise honest. jumladaan adigu yaro noqon ama weedha mar labadan adiga yar akhriyo. Mohammed's very, he's never late and he never forgets to do things. okay, masha allah, very good. kan uu yaro dheeraya, marka in yar baan idi yaro sugi, isku day inaad ka wada jawaabtaan. okay, in yar haddaan xagga hoos idugu yaro dhigo, hadduu xaggan kan inoo yaro socon doono. okay, kan jeclaan inaad arkaysaan. jazaakum allah khayran intiina soo wada qorayo dhan, very good. kuwada daala, very good. okay, hadaasi waa silent laakiinse waa la qoraya. laakiin marka ardayda qaar baan arkaya oo qoraalkii ka dhex saaray hada silent waxay macnaheedu marka la dhawaaqayo, laakiin marka la qorayo h taasi waa la qoraya. okay, marka Mohammed's very, he's never late and he never forgets to do things. marka haddii macnayo Mohammed's very, Mohammed waa qof aad marka reliable baa la doonaya. reliable macnaheedu waxa weeyaan waa qof la isku halayn karo. okay, patient waa qof sabir meeran. grounded waa qof degan oo aad u dhulka lugaha ku hayo oo daanan kibri waxba aan lahayn, laakiin qof aad u degan. honest waa qof daacad oo run sheeg, laakiin runta laguma weydiin. waxa lagu yiri marna ma habsaamo, waxna ma ilooba. marka waa qof la isku halayn karo, reliable. okay, very good. the next one, okay, ocean currents play an important part in regulating global climate. okay, imika soo yaraad kaanayaan soo maaragtid. ocean currents play an important part in regulating global climate. marka waxay noqonaysaa are believed, are known to, are thought of as. okay, xagga taaba inaga maqan, raali noqda. are thought of as way. marka halkaa tiidaasaanu ka iloway, marka taasi tii baa raacsan, saasuu la socda. we think, we think. okay, marka teebaa dooran lahayd? okay, intaasaa markaa ladiga yaro sugaya inaad ka soo jawaabtaan. ocean currents, okay, play an important part in regulating global climate. marka imika markaad ka soo jawaabtaan waan idin macnayn doonaa saad u fahantaan macallin. idii fahmi weydo isee word u fahanto ama jumlad u fahanto. marka waxaad dooranaysaan are believed ama are known to, are thought of as. marka xagga tiida ku dara markaad qoraysaan. okay, thought of as, we think. keebaa dooranaysaa marka? kala doorta. very good, masha allah. intii ka soo shaqeysa aad baad mahadsantihiin, jazaakum allah khayran. kuwada dadaala, masha allah, very good.
in badan baa kasoo shaqaysay inkastoo imika aad in badan aad kala duduwantihiin kuwii hore waad isku raacsaneedeen laakiin imika waxaad moodaa in deero kala guurayo nin walba dhinac kala soo eegayo marka ocean currents waxa weeyaan waa moojooyinka badweynta marka moojada badweynta weliba currentska waa ta badda dusheeda maaha waa ta hoosta biyaha hoostiisa moojaa socota marka ocean currents marka play waxay sameeyaan ama ciyaartooda waxay ka qayb qaataan way macnaha meel ama goob muhiima ama kaalin muhiima ayay ka qayb qaataan regulating global climate inay maxaa la dhahaa regulation marka waxa weeyaan maamulideeda ama isdhexdhexaadinta regulationka marka laga hadlayo ama regulate waa wax la dhexdhexaadinayo ama wax la maamulayo wax saameyn lagu yeelanayo marka global climate waa xawayaan jawiga adduunka marka jawiga adduunka marka global climate are known to way marka okay are known to play an important part in regulating global climate jawaabta saxda waxa weeyaan are known to intiina ka soo saxday ma sha Allah jazakumullahu khairan intiina kale dib u geero noqda ka wada sax insha Allah wax dhima ma haday ku dhaafaan hadhow markuu video-ga dhamaado kulli dib aad ugu noqon kartaa okay 24 xogaa inoo harsan marka soddon baanu ku joogsanaynaa marka imika 4 marmarana in yar baa inoo harsan wax badan maaha marka my cousin okay getting a job in South Africa my cousin getting a job in South Africa marka is planning so wants to be would like is thinking of okay is planning wants to be would like is thinking of my cousin getting a job in South Africa okay badorle ويرى فكر مركا very good ما شاء الله انت سويت شابتات ما تسنتين جزاكم الله خيرا واسي وناكسن انتينا كلانا كسو شغاين من دير السوقية very good ما شاء الله إما كوالا يركل القوري سان واركي كولبا نيوال بتشيها ويوتشيد سدين سماه معارضي محافظ بايما كلالا كلا نقنا يارتي دي مركا رواد سرع سنة داني مكالا كيسا نيوال با سؤال قوني سوقريا شواب قوني My cousin getting a job in South Africa is planning wants to be would like is thinking of okay very good mashallah intiina markaa garatay waxa weeyaan waa is thinking of my cousin is thinking in badan baa soo qortay is planning marka my cousin is planning of getting a job marka is planning to get a job in noqonaysa marka ma faabkaas is bedelaya ama halkan ofta ka maqnaanaysa like is tana sax is thinking of getting a job in South Africa okay marka would like getting is maraayan wants to be getting na sax maataas marka waxa weyn my cousin marka cousin han af Soomaaligana waxa weyn saddex qaybood bay leedahay marka waa ilma adeer habar wadaag iyo ilma abti saddexdaa baa Soomaali baan ugu kala saarnaa laakiin English han waxa la isku darnaa waa cousin waaye aanu sii wadana hadaba 25 su'aasheena 25 ama 25 criminals are people who are guilty of the law okay marka ma cheating running away breaking mise waa committing cheating ba mise waa running away breaking mise waa committing criminals are people who are guilty of the law okay taas hal diga doonaya marka waxaad ku jawaabaysaa ma cheating running away breaking mise committing okay in yar baan diyaar sugaya ka soo shaqeeya jazakumullahu khairan ma sha Allah very good si fiican baad uga soo shaqeyseen okay jazakumullahu khairan ma sha Allah arday fara badan oo aan garanayo mar walba live-kan ugu jiraan arkaya jazakumullahu khairan very good si fiican ku soo dhawaada ma sha Allah صح كان واتس كورة عصتين بانو ملاك كان واتس ودر عدين okay
criminals are people who are guilty of breaking the law. Very good. intiina badan waad garateen breaking the law marka cheating waxa weeyaan khiyaamada ama qishka marka qofkani qish moodada uu jibiyo in sharciga law waa xeerka ama sharciga waa jibistiisa marka criminal waa dambiilayaasha marka jibinta ama maxaa la kasoo horjeedinta breaking running away waa ka baxsashada committingna waxa weeyaan waa samaynta marka taas ma noqonayso marka breaking ee saxna jazakumullah khairan intiina badan waad saxdeen 26 marka inta waanu ka boodina taasi waxa weeyaan imika quiz waxa baanta iyadoo dheeraada marka waxaan wareegi doonaa 27 waanu ku dadboodina 28 okay last two questions read baa laga doonaya marka inta inaad akhrisid marka horta waad akhrin doontaa kadibna su'aasha ayaa lagu weydiinaya marka su'aasha marka hore aan idin eegana marka su'aasha waxa lagu yiri question a map of Europe is in my right hand marka khariidada Europe ayaan gacantayda midig ku haystaa machuba mise waa false okay waxaad ka soo dhex saaraysaa akhriska inta marka akhriso ana idin akhrin doona idinkuna la akhriya waliba isku day inaad akhrisaan kurug dhawaaqa laftigiisa wuxuu idiga caawinayaa practice-ka pronunciation skills okay the beautiful color map that is in my left hand is a map of Europe. The top of the map is north and the bottom is south. The left side is west and the right side is east. All the nations of Europe are on this map. Okay? Marka idinku si fiican u akhrista. Su'aasha lagu weydiiyo marka waxa weeyaan a map of Europe is in my right hand. True or false? Okay? True or false ayaad kala dooranaysaa. True or false? Okay? Marka intaas aad soo kala qoraysaa. marka inta markaad akhrisid su'aasha inta halka inoo qoran ayaad sheegaysaa ma sax ba mise waa qalad run ba mise waa been true or false okay kasoo jawaaba masha Allah jazakumullah khairan very good okay masha Allah very good masha Allah intiina badan si fiican baad u qarateen very good صح marka jawaabtani waxa weeyaan intiina badan waa wada garatay masha Allah waa false waayo waxa lagu yiri markii hore column map that is in my left hand baa lagu yiri not right hand gacanta midig iyo gacanta bidix bay kaliya okay jazakumullah khairan aan ku sii soconna marka qaybteena ku xigta 29 marka 29 iyo 30 baa akhris marka sheekooyin baan yara akhrin doonaa marka read baadana lagu yiri questions horta marka mar walba waxaan kula talinayaa marka saan oo kale noqoto waxa la dhahaa reading comprehension marka waliga dad reading comprehension aragtid talada koowaad aan ku siinay waxa marka hore waxaad akhrisaa su'aasha ku hore arday badan baan arkaa markiiba sheekada akhrinay hadana su'aasha eegay waxaad ku horeysiisaa marka hore su'aasha akhriso kadib markaad su'aashaad fahantid sheekada akhri waxa laga yaabaa adoo sheekada akhrinaya inay su'aasha jawaabteeda ku soo baxdo okay laakiin xaga kale inay ku yaraad qadadan dib u raadis marka su'aashaan ku horeysinina it is wet in the north of Brazil ayaa lagu yiri it is wet in the north of Brazil machuba mise waa false marka labada option bad leedahay marumba mise waa been marka anadii akhriya marka read baa lagu yiri Brazil is a very big nation in South America. Brazil is a very big nation in South America. It is on the east side of the South American continent. Okay? It is on the east side of the South American continent. The north of Brazil is wet, but the south is dry. Only the Atlantic Ocean is on the east side of Brazil. Okay? Marka inta adiguna dib u akhriso kuna dhawaaq iskuna day insha Allah jawaabta marka su'aasha lagu weydiino waxa weeyaan it is wet in the north of Brazil marumba mise waa been hadalkaasi marumba mise waa been xaggaas aad ka soo dhex saaraysa okay yar baan diyaar sugaya masha Allah in badan baa ka soo shaqeysay masha Allah dheereensaane masha Allah arday wada wanaagsan baa ku jira jazakumullah khairan kuwa xarifiina masha Allah inoo soo galay live-ka okay soo wada marka intiina kalena jazakumullah khair very good si wanaagsan very good
ما شاء الله. اوكي أنا دي رسوي انتينا كانت كسو جوابتان. اوكي marka waxa lagu oranayaa waxa weeyaan it is wet in the north of Brazil baa lagu yiri marunba mise waa been true or false marka intaas baad soo kala qoraysaa true or false baad soo qoraysaa okay masha Allah si fiican baad ugu dadaasheen yes this is true waa weeyaan waa xagana ugu yiri the north of Brazil is wet okay it is wet in the north of Brazil marka waa sax intiina true soo qortay waad saxdeen jazakumullahu khairan marka su'aasha ugu dambaysa aanu galno soddon waanu dhammaystiray iminka quizkii tii ugu dambaysa aanu galayna insha Allah ardayda iminka naga soo qayb qaatay ama xagga dambe ka soo galay waxbaa ka warwarina dib baad usoo daawan kartaan videoga hadhow markuu quizka ama videoga live-ka markuu inoo dhammaado bilowga horaad ka soo bilaabi kartaan sidoo kale haddii online koorsooyinka doonaysa waan idiin xasuusinayaa lambarada xagga sare ama xagga hoose ku qoran videoga markuu dhammaado lambarada WhatsApp-kaad kala xiriiraysaa ABC-ga Englishka beginner Englishka speaking Englishka levelada kala duwan oo dhan aad ka qayb qaadan kartaa insha Allah waayahay marka su'aashan ayaa marka hore ku horsiinana waxa lagu yiri the yellow English books were only in Dr. Townsend's class marka Townsend marka waa macni weeye magaciisa the yellow English books were only in Dr. Townsend's class marka is it true or false marunba mise beenba okay marka halkan aan ka soo dhax saari doona read baa lagu yiri marka all my friends teachers were from nations where English is the first language Dr. Townsend who was his first English teacher was from Canada in Dr. Townsend's class the English book was all black. My friend's second English language teacher in Japan was Mistress Martin. She was from Great Britain. In Mrs. Martin's class, the book was all yellow. My friend's third and last English teacher in Japan was Miss Trump. The book in Miss Trump's class was all blue. Okay? marka intaa sheekada imika akhriseen ardayda macallimiintiisa laga hadlaya macallimiinta halkay ka yimaadeen iyo fasaladooda bugaagta midabada ay leeyihiin markaad kala saaraysaa marka su'aasha lagu weydiiyo waxa weeyaan the yellow English books were only in Dr. Townsend's class the yellow English books were only in Dr. Townsend's class. Is it true or false? Marunba mise waa been okay su'aashana inoogu dambaysa marunba mise waa been very good masha Allah si fiican baad wada dadaalaysaan jazakumullahu khayr soo wada very good صح very good masha Allah intiina badan imika waad isku wada raacdeen جزاكم الله خيرا وسوى أحسن very good ما شاء الله سيف عن بعض وضع كرتين انتينا بدن قف قلدي ولي ما نرق very good مركا تن جوابتي سو حويان false وايو Dr. Townsend وحاول يقولي بوكيسا in Dr. Townsend's class the English book was all black بوكيسا مدو أمر بحولي بها okay marka haddaan idin weydiiyo buuga huruuda yaa haysta okay buuga huruuda yaa haysta okay yaa garan kara macallimad ama macalinkee ayaa haystay buuga buluuga ama buuga huruudan u jeeda buuga huruuda ama jaalada marka yellow waa huruud ama waa jaalo marka classkee macalinka ama macallimadee ayaa haysatay buuga huruuda ama buuga yellowga yaa garan kara macallimadda ama macalinka magaciisa very good very good masha Allah very good masha Allah waxa inoogu horeeyay gooshka ina maxamuud baa inoogu soo jawaabay jazakumullahu khairan gooshka ina maxamuud Martin waa saxsantahay marka magaceeda dhameystir Martin waxa weeyaan waa magac surname-ka title-keena raacsi
very good maxamed qomana si fiican u qoray Mrs Martin marka MRS waa haween marwe u jeedaa marka mistress iyo Mrs baa la oran karaa marka waa marwo very good intiina badan waad garateen jazakumullah khairan marka intii imaka xagga daba naga soo qayb qaadatay casharka video imaka live ka waanu dhamaystirana insha Allah kadib marka uu soo galo Facebook page ka daawan kartaan intiina kale qaar ba soo weydiin macna lambarka halkuu ku qorayay videoga imaka marka live ka laga baxo baa lambarka xagga sare lagu qorayay insha Allah marka in yar kadib 5 daqiiqo kadib aad lambarka ka heli doontaa videoga laftigiisa dib ugu noqo Facebook page ka Language College videogan aad arki doontaa lambarka xagga sare ku qoran ayaad kala xiriiraysaa WhatsApp-ka koorsooyinkeena online-ka fasalada English-ka iyo Carabiga iyo Soomaaliga ba imika la soo waday IT-ga insha Allah aad baan idin wada salaamaya jazakumullah khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh